حبيال maanta waa Jimco suuqa waxyaabaha ugu waaweyn aan fiirin doonaa iyadoo Cesc Fabregas oo heshiis 4 sano la galay kooxda Como waana macalinka kooxda 4 sano soo aadan wuxuu diyaar u yahay kooxda inuu waqtigan Real Gazera ay wax badan kula keeno. Rafael Varane ayaa noqon kara saxiixa ugu horeeya ay sameyn doonaan sida la xaqiijiyay. Dhinaca kale Crystal Palace ayaa dalab u soo gudbisay Arsenal oo ku aadan Emil Smith Rowe laacibkan koox badan doonaya Fulham ayaa hore looga diiday Arsenal markii laga soo dalbaday xidiga laakiin suuqa ayuu yaalaa Emil Smith Rowe. Real Madrid xilligan iyadana waxa leeyahay ma gudbinayso wax ku aadan Chelsea goolaheedii hore uga soo qaatay qaabka amaahda Andre Lunin ayaa dooq koowaad leeyahay xidigan Keba isagana Al-Ittihad iyo kooxo kale ayaa waqtigan daneynaya inay qaataan. dhinaca kale suuqa waxyaabaha ugu waaweyn Alvaro Morata ugu dambeyn kooxda ay ku biiray AC Milan 4 sano heshiis ay la galay 13 milyan lacag kor u dhaafay ayuu xidigaas heli doonaa. Sergio Roberto Barcelona ayaa aqbashay in la wada ay kala maraan ama ay kala tagaan xilligan koox heshiisa ma jiro leeyahay u dhaxay kooxda xidigan waana xor waqtigan laacibkan. Suuqa N'Golo Kante ayaa lagu arkay wargeysyada ugu waaweyn Ingiriiska oo dalab ka soo gudbiyay gaar ahaan kooxda West Ham oo doonaysa xidig Al-Ittihad waxaana macquul ah laacibkan inuu dib ugu soo laabto Real Premier League. dhinaca kale sheekooyinka waxaa ugu waaweyn suuqa Leipzig ciyaarta ama suuqa Leipzig ciyaartooyda Manuel Ugarte Manchester City shakhsi la gaartay weli waxay doonayaan inay soo qaataan Paris dhankeeda diyaar ay u tahay xidig inay iibiso haddii helaan Joao Navas ay doonayaan inay soo gabagabeeyaan heshiiskiisa laacibka kooxda kubadda cagta Benfica. sheekooyinkan ayaa kuwa ugu waaweyn ciyaaraha suuqa Leipzig ciyaartooyda maanta Jimcaha Beejka falay noo saaxiibadan la wadaag.